laakiin for now hadda qabriga ku jira horta hore qabriga ilaahay wuu iga soo saaray alxamdulillah hadda like I think I'm still hostage weli qofkaas hostage ahay because the last time I continue koreyna maxaa lagu dhahay anything hadda lagugu arko this guy is going to come back but I think maxaa rajaynaa inay khayr noogu dhammaan doonto insha allah keeska adii 50-50 waaye wixii waa la dhameeyey mana la dhameynay nimanka waxaa lagu heshiiyey in loo sameeyo waxooda so ayka weli wax u dhiman tahay marka ilaa waxooda loogu sameeyeyna we can't talk about it nolosha maxaa kugula yaabka badnaa oo aragtay intaad noolayd maxaa ila yaab badneed qof oo iga qaldan ayadoo saas tahay aniga qaladkiisa dusha layga saaray oo lii xiray 3 habeen oo ugu jira jeelka taasaa ila yaab badneed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد يوتيوب channel كيغا مانتا يا مرتي ولا شيء زيتون السلام عليكم guys واني سلامي أصحاب ترياق يو تتكدن dadka meesha ku jira dhan ya dadka waxay ku yaqaanaan dadka meesha ku jira waxay ku yaqaanaan zeze laakiin aan zeze kuma aqaano زيتون oh my god ما شاء الله maanta zaytuun aan marti noo ah زيتون horta mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawo YouTube channel-kayga oo maadsantahay asxaab fara badan oo ku soo codsaday inay jireen oo dhahayeen zeeyarabna zeeno soo qabo marka maxaa la jiray bal maanta maxaa u wadnaa asxaabtan adaa sheegi doonto horta adiga ku soco bal and thank you for everything horta hore af Soomaaliga pure ma ku hadli kari inaas ku darqasay marka guys maxaan leeyahay waa maadsantiin sida ay garab qabateen iyo dhibka soo maray idinka dhan waa ogtihiin marka I was talking about like idinka dhan waan mahad celina dadkii soo wacay dadkii garab qabtay dadku waxay ugu soo darsaday waa mahadsantihiin kulay waxay soo martay zaytuun Soomaaliga daad isku fiicno ya inaas ku darnaa kulay ha mar kulay waxay soo martay alxamdulillah maanta waxayna hor fadhiday zaytuun oo caafimaad qabto oo fiican inkastoo kani cagso dharagtay gabadheena la baay kaneecay isoo dhigtay aniga dhanba sorry marka guys waa ogahay idinka dhan you guys can't wait inaan ii sheego si arrintu dhacday iyo si wax walba yihiin but insha Allah wax yar ay dul qaadanaysiin wax yar arrin yar jirto weli lama dhameynin wax wixii lama xalinin waa ku guda jirnaa insha Allah by the time meel ku soo hubsano I will let you know wax walbo jiro because idinka dhan waa ay garab qabateen idinka dhan waa ay dab taagneedeen intaas aniga maanta iga badan waana mahadsantiin insha Allah the next video soo duubi doona ani riyaa muxuu ahaan doonaa waxa ku saabsan arrinteeda about my case case-keeda wax ku saabsan yani qofkaas waxa uu yahay meeshuu ka yimid waxa uu yahay sida afduubka u dhacay xiritaanka qaabka ay kusoo badbaaday waxa dhan insha Allah waa laga hadli doonaa laakiin maanta ma sababtu tahay kiiska lagu jira waa lagu guda jira marka kiiska intuu soo dhamaanayana balanta waxay ahayd wax social media la dhaho in laga soo muuqanin xataa videoyada hooyo waa la xiray videoyada hooyana waa la xiray and tada kale maxaan dhihi rabay hooyadayaba waxa qaarnii sheegtaa u maleynaa saali sheegay ani waa xirnay videogana wili ma arkinbo waana la delete gareeyay by the time soo baxay oo TikTok kaagu asamay zama TikTok keeyo aha laakiin ani gudaha ku jira telefoon ma haysanin waxa isticmaalana ma haysanin okay marka kulli hadda caafimaad qabto oo adoo nabad qabtid caafimaad qabtid aan noo soo laabatay horta waxaan mahad celinaa Ilaah subhanahu wa ta'ala next waxaan mahad celinaa family friends iyo dadkii dhamaan kuugu imaaday meesha maxaa la jiray stationka dadkii guriga kuugu imaaday dadkii soo wacay waxoo dhan marka asxaabay zay dada dad soo qoraan taqaana gabadh indhaheeda hurdidaala ku hurdadayga muuqanaysa maxaa wallahi 3 maalin asmiid ku fadhiyay aw saas ugu jifanay 3 maalin iyo 3 habeen ashamiinta meel dhul samiitaha xalay marka joodari tagana hurdaba iga soo dhici waysay 9 saac ay hurdayga soo dhacday walwalka ka waran xabsiga ma ku jirta ila walwal qalbiga iyo soo iyo xanuuna dhagax noqdo qalbiga dhanbo but you guys zaida is support grace laakiin markii aan xirneed zay hal mar waxa ku weydiina markii aan xirneed xabsiga ku jirtay like meeqa barimka ku jirtay dadka ku ogaadeen like adi anoo 2 habeen marka ku jiray oo anigoo sugayo like anoo maxaa I didn't give up xasraa maanta waa bixi doonta caawin seexan doontid markaas like adi wax badan aan lagu soo sheegtay
so keeskia sii weynaaday markaas zam gabadhi saaxiibadii zam ilaahay khayr siiyo way garab qabatay gabadhaasaa isaacidaysay oo hooyadii tiktok soo gelisay waa aragnay aniga xataa hooyaa ka aragnay tiktoka ha yeah that's why dadkii soo raadiyeen okay ay ana baby sadu kale waxa duunay youtube aw sata baby ama fiicnahay iyo join us it's okay كذا سياح عاننا ما وضعت ولا لا بعي شيء عاننا بس كله حتى بنوني كيما هذه والله بنوني عادي oh my god بنوني دكتور that is so cute والله حقي كديشة فوق oh مسكو عتيني ها بروني ما اسكو عتيني بس عدنا عياري ماي بنوني أنا وأنا اللي بقى يقدر على أنا عاتيني شو بروني محل دانتا ما قش marka hore iscayil marka gudaha station marka ku jirtay qolay xabsi dhibaatadiisa qofkii soo maray oo baa garan karo Soomaha iyo dibka uu leeyahay marka ha maxay u mareysay ayadoo laba habeen marka ku jiray oo zam il garab qabatay maalinka saddexaad oo dadka like qof walba was imagine anoo meesha ku jiray xitaa xabsiga wiilala xitaa yimaadeen wiilashaas wiila kama hadlina u maleena way imaadeen ilaahay ii soo diray alxamdulillah maxay leeyahay anaka ku joogno logbook ama waxay ahaataba anaka ka dhigeeno dadkii saacideen kulli waa mahadsantihiin you will always be in my heart waan ii soo duceyn doonaa زي انت ما كسو غدنو حد markuu waxa u dhaadhicina su'aalaha jeclaystina aad ku weydiiyo so ready aad samaha okay first name ka maxaa noo sheegtaa marka hore magacaaga oo dhameystiran زيتون محمد نور زيتون محمد نور زي yeah زي ميم زي زيتون زي ميم زي زي okay and okay زي يلا ما شاء الله hooyada iyo walaalihii waxbarashada heerkee ka gaartay primary dhigtay la class 8 form 1 school ugu baxay form 1 school ugu baxay sabab school lacab bariya qorashad okay social media garoon soo birtay social media maxaa ku soo biiray last year mar hore soo galay but last year dadka barteen goorma soo gashay 2020 yaa soo galay 2020 saddex sanaad ku bartay so waxay ku bartay marka 2021 adag inta badan ku bartay okay ma sha Allah heer illa intee la yartay inay ka gaarto social media like ani just for fun oo soo galay but meeshay gaarsiisay adan filanayna aad lagu galay maalin hore ku inaan macdaysa social media house oo galay dadna dadku ciyaar qosla marka daa video sana qoslo mar labaad okay nolosha maxaa kula yaab badnaa oo aragtay inta noolay maxaa ila yaab badneed qof oo iga qaldan ayadoo saas tahay aniga qaladkiisa dusha laga saaray oo lii xiray saddex habeen oo jira jeelka taas ay ila yaab badneed taas adi bis kulama yaab badneed kana la yaab matay ilaa hadina riyona uma la yaabo riyo ku jirta may ka soo qaada daa caafimaad qabtaa fiicanta guriga hooyada joogto waxa ka soo qaada waxaas dhan bay riyo aayeen ka soo kacday waxa sax ku jirin ma sha Allah maalintii kugu murugada badneed noloshaada maalinta maalinka ay soo tagay ay hooyo ay abo ay hooyo indii joogtaa mandheera joogtaa aba horta mandheera maantay ma ay gees meesha soo jecla xagaa ku dhashay like wow yara soo tagay ani 2 days soo joogo mandheera 2 days kaas guri ma kala bixin ani 10 days soo joogay it was like a hell kuleel meesha zaid ku shaqeeyay gaarsi mandheera ku leeris ma u aadan buligii okay xalli jiray cuntada ugu jeceshay cuntooyinka marka la dhaho hadda maanta dabcan ku casluumo cunto nooc ku casluumo bal qashin siisiya aniga chicken ajalaay chicken bas yeah you please it's my favorite okay su'aasha ku weydiinaa waxay tahay waxaa leedahay saaxiibo wiilal ha noqdaan gabdhaha ha noqdaan sama saaxiib waxa ka hadlaya jacayl kama hadlay saaxiib caadi ah
okay ma dhacday wili qisa aan la yaabto ama wax aan la yaabto oo kala kulmay saaxiibada wiilasha noqon ama gabdhaha noqdaan Gabdhaha la kala yaabto kulmay. maxay ahayd is garanaya inaa ka sheeko marway like okay laakiin qisana kala kulantay zaaid xun marka waxaan ka filanaynin okay ma jira qof aan la saaxiibtay oo aan leedahay abaalkiisa ama abaalkeeda ma gudi karo saaxiib kula ah ama horaha kula ahaa ama hadda kula ahaado haa ma jirtaa yaa zamzam zamzam anaga abaalkeeda gudi karin gabadhaas haa zamzam because noloshaada adoo xiran qofka nolosha socodsiiya ayaday ahayd hooyo u tagay wax kasoo duubayno had maamada kaligeed dayna soo istaagi lahayd maamada kaligeed haddan soo istaagi lahayd cid garan lahayd malasun ayada iyo wiil kale cad qafaar la dhaho halkan He's uga just a mahadcelin friend walaalkii saaxiibo yihiin anigana walaalkii camal waa he's a good guy saaxiibo wax walba way la qabtay cunugaas maasha allah soo marka labadooda yani baal weyn oo lama huraan noloshaada ka yaa zaaid aada u mahadsan yihiin so videoga halkan aan jeclaysa inaan kusoo gabagabeeyo asxaabta maxaa leedahay asxaabta waxaa leeyahay waa mahadsantihiin for now hadda qabriga ku jira horta hore qabrigii ilaahay uu iga soo saaray alxamdulilah hadda like I think I'm still hostage weli qofkaas hostage u ahay because the last time I continue koreyna maxaa lagu dhahay anything haddaa lagugu arko this guy is going to come back but I think inay maxaa rajeynaya inay kheyr noogu dhammaan doonto insha allah okay insha allah anaga inaan wada rajeynayno videoga in badan soo codsanaysa inaan lahadeen soo qabo zay waraysi la yeelo waxaa rabnaa inaan ogaan informationka buuxo so inta ay maamad idin soo tataabatay inta hadda idin tataabatay yani ha idinku filnaadaan insha allah videoga xiga wuxuu noqon doonaa ama videoga xiga ani zaytuna soo wadin wuxuu noqon doonaa videoga oo full information ka filnaa yaa insha allah marka hadda xoogaa waxbaa saadaalinayaan ducada noogu dadaala weli kiiskama dhamaanin soo ilaahay inuu ka dhiga gacanta guuleysata zaytuun so marka halkaas uga sii baxeen asxaabta qiimaha le meel baa joogtiin waxaan leenahay kiiska adii 50-50 waayey wixii waa la dhameeyey mana la dhameynin nimanka waxaa lagu heshiiyey in loo sameeyo waxooday so ayaka weli wax u dhiman tahay marka ilaa waxooda loogu sameeyeyna we can't talk about it so waan ku mahadsantihiin wax walba ay la qabateen aada weyn dhammaantiin marka waxaan leenahay video intaas ku imaanin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu